السلام الله عليكم أخيارتنا لا صعطة ميل كستوا الدنيا كجوكتان كسو دوادة تبيني تحليلين كله oo ku saabsan warar waaweyn oo hadda ka soo kordhaya gobolka bariga dhexe waxaad moodaa xiisada gobolku wali inaanay fadhin oo laga baqayo isbeddelada degdega in daqiiqad walba ay dhacayaan warbaahinta gobolka bariga dhexe waxay qorayaan goordhow inuu soconayo diyaar garow xoogan oo ku aadan inuu dib u qarxo dagaalka gobolka bariga dhexe warbixin gaar ah oo qoray wargeyska Ra'yul Yawm waxa uu leeyahay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa'iil ayaa waxay sameynayaan diyaar garow halka Iiraanna ay diyaar garowga sii xoojisay waliba isbuuca soo socda ayaa laga baqayaa dagaalka mar kale in uu soo laabto oo Trump tilaabooyin qaado waxa uu leeyahay dulqaadkii waa naga dhamaaday waxaan sameyn doonaa inaan aad u garaacno wadanka Iiraan dowladda Pakistan ayaa iyana safaarad ku taala caawa war ka soo baxday oo lagu tilmaamay waxa ka soconaya magaalada Tehran indhaha ayaa lagu hayaa kulan gaar ah oo u dhaxeeya Pakistan iyo waliba dowladda Iiraan oo looga baaqsanayo dagaalada in ay sii labalaxaadsadaan oo mushkiladu ay sii ballaarato warar kale oo iyana soo baxaya waxay leeyihiin ciidamada Israa'iil ayaa heegankooda kor u qaaday caawa waxaana laga baqayaa istiraatiijiyada dagaalka in ay isbedesho wakaalada wararka Reuters waxa ay tilmaamaysaa marka la eego go'aanada uu qaadanayo Trump iyo waliba cadaadiska ka saaran gudaha aqalka cad waxa ay tilmaamayaanba in gobolka isbedel weyn uu ku soo socdo oo dhibaatooyin xoog leh ay meesha soo galaan iyadoo dowladda Shiinaha ay hadda u muuqato shaqadii loo diray inay meesha ka baxayso bal aan dib u fiirino gobolka bariga dhexe dagaal ka dhaca waxa uu keeni karo iyo waliba isbedelada ka iman karaya markan waliba daqiiqada ka dambaysa waxa lagu sii dhawaanayaa dagaalka inuu bilowdo qiyaaray soo dhawaada wararka waaweyn ee diblomaasiyadda diyaar garowga militariga iyo waliba wararka ay qorayaan warbaahinta galbeedka iyo kuwa bariga dhexe ayaa si gaar ah ugu gorfayn doona barnaamijkan ku soo dhawaada YouTube-ka oo ku soo biira waa mahadsantiin ma doonaysaa inaad Masar ka bariga dhexe isbedelo waaweyn ayaa ka soo baxayay oo waxa loo maleynayay in dhinaca nabadda la aadi doono laakiin caawa wax badan ayaa isbedelay marka la eego sida ay wax u soconayaan hadallada ka imaanaya Trump iyo waliba diyaar garowga dhinaca militariga ee laga dareemayo xulufadii dagaalka ku qaaday dowladdaasi Tehran 28 bisha February aynu ka soo gudubnay Trump oo rajo badan ka muujinaya dowladda Shiinaha inay samayso isbedel isla markaana dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadda ay ku soo biirto ay gacanta qabato dowladda Tehran hadda waxa ay leeyihiin wargeysada qaar waxba isbedelay wargeyska Ra'yul Yawm oo kale waxa uu qorayaa warbixin uu ku sheegay kororka diyaar garowga militariga Iiraan aan idhaahdo Mareykanka iyo Israa'iil ee Iiraan iyo su'aalo laga keenay natiijada kulankii Shiinaha marka waxaad moodaa Beijing iyo waliba Washington in wax ka duwan wixii looga hadlay caasimadda wadankaasi ee kulanka labada madaxweyne ay hadda soo kordheen aan eego warbixinta wargeyska Ra'yul Yawm ayaa sheegay in xiisada u dhaxaysa Mareykanka Israa'iil iyo Iiraan ay marayso heerkii ugu sareysay iyadoo labada dhinac ee dagaalka soo qaaday ay si weyn u xoojiyeen diyaar garow military oo ku saabsan suurtagalnimada dib u bilaabasho dagaal oo ka dhana Tehran maalmaha soo socda warbixintu waxay tilmaamaysaa in Israa'iil ay sii wado cadaadis siyaasadeed oo ay ku saarayso madaxweyne Donald Trump inuu dib ugu bilaabo weerarka military oo ka dhana Iiraan xilli la filayo in istiraatiijiyadu ay noqoto dagaal muddo dheer socda balse uu ku koobnaan karo baa la yiri howlgallo degdega oo xadidan sidoo kale waxa la sheegay baa la yiri in Mareykanku uu ka fiirsanayo xulashooyinka military oo kala duwan oo ay ka mid yihiin duqeyn ballaaran oo lagu beegsanayo xarumaha militariga iyo kaabayaasha Iiraan iyo xitaa howlgallo dhulka ah oo ay fulin karaan ciidamada gaarka ah sida in la beegsado barnaamijka nuclear-ka gaar ahaan xarunta Isfahan oo hadda ay tahay mid ugu weyn ee indhaha la saarayo
warbixintu waxa ay intaa ku dartay boqolaal ciidanka gaarka ah ee Mareykanka la geeyay bariga dhexe tan iyo bishii March aynu ka soo gudubnay taas oo muujinaysa diyaar garow ballaaran oo aan horey loo sii qorsheeyay baaliri oo haddii ay xaaladdu sii xumaato si degdeg ah tallaabadaasi loo qaadi karayo. dhinaca kale ila military oo falanqeeyaal ayaa tilmaamaya in Israa'iil ay aaminsan tahay in cadaadiska hadda jira uusan si buuxda u joojin awoodda Iran taasoo keentay in la kordhiyo qorshayaasha weerarka iyo diyaar garowga iska caabinta dagaalka Iran haddii uu sii xoogaysto oo uu sii ballaarto. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in sirdoonka Mareykanku ay qiyaasayaan inaan dib u soo celisay baaliri Iran qayb kamid ah awoodeeda gantaalaha iyo waliba xarumaheeda dhulka hoosta ku jira ama dhulka hoostiisa ku jira taasoo kordhinaysa walaaca laga qabo in xiisadu ay isu bedesho dagaal ballaaran oo gobolka guud ahaantiiba saameeya. sida ay warbixintu sheegayaan xaaladda ayaa noqotay mid aad u cakiran iyadoo isbarbardhig lagu sameeyay hadallada siyaasadeed ee Trump iyo xogaha sirdoonka kuwaasi oo muujinaya in awoodda Iran aysan si buuxda u daciifin oo ay hadda kor u sii socoto. warbaahinta ayaa sidoo kale su'aal ka keentay natiijada kulankii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Shiinaha iyadoo sidoo kale bayaanka iyadoo soo baxaya baaliri shaki ku aadan dadaalo siyaasadeed oo lagu doonayo xasilinta xiisada in ay wali tahay mid natiijo la'aan ay ka muuqato. khubarada amniga ayaa ka digaya haddii dagaal degdeg la gaaro in xalka uu noqon karo mid cirka isku sii shareeray oo aan hadda muuqan karin in si degdeg ah wax loo xaliyo sida ay wararku tilmaamayaanba. madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu leeyahay Iran waa lagu daalay waxaanay u muuqataa haddii ay sidan ku sii socoto in ay muujin karayso tillaabooyinkan inay noqonayaan kuwa degdeg ah. marka la eego madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu ka digay in Iran ay wajahi doonto xaalad aad u xun haddii aan la gaarin heshiis cusub oo u dhaxeeya labada dal xilli xiisada Washington iyo Tehran ay sii kordhayso. Trump oo la hadlay telefishinka Faransiiska ee la yiraahdo BFM ayaa sheegay in uusan hubin in uu heshiis dhow lala gaari doono Iran balse uu tilmaamay in dowladda Iran ay danaynayso inay xal ka gaarto khilaafka jira. Iran waxay wajahi doontaa waqti aad u xun haddii aanay heshiis qaadan buu yiri isaga oo mar kale ku celiyay mowqifka adag ee ku wajahan Tehran in marka laga gaaray go'aano u muuqanaya guud ahaanba dowladda Mareykanka inay soo bandhigto awoodeeda. warbixin uu daabacay wargeyska The New York Times ayaa sheegaya in Trump kadib kulankii Shiinaha safarkiisa uu wajahayo go'aan muhiim ah oo ku saabsan in uu dib u amro duqeymo military oo ka dhana Iran kadib markii uu tilmaamay soo jeedintii ugu dambeysay ee Iran inaan la aqbali karin. sida ku xusan warbixin Pentagonku ay diyaariyeen qorshayaasha isugu jira duqeymo cirka oo xoogan laguna bartilmaameedsanaya xarumo military ayaa la gaaraya iyadoo tan ay tahay mid ugu weyn ee Israa'iil ay hadda ka faa'iideysanayso oo u muuqanaya dagaalka in uu sii xoogaysan karo. isla wararka caawa ay qorayaan warbaahinta nidaamka Israa'iil ayaa tilmaamaya in ciidamadooda la galiyo heegankii ugu xooganaa oo ay doonayaan in ay ku qaataan amarka Trump haddii dagaalka la bilaabo si degdeg ah inay u duqeeyaan xarumo si gaar ah u bartilmaameedsanayaan. telefishinka 13aad ee Israa'iil ayaa sheegay in militariga uu sii wada diyaar garow xoogan oo ku aadan suurtagalnimada dib u bilaabashada dagaalka Iran iyadoo baa la yiri waa dalka waa sida yiraahdeen oo dhan la galiyo xaalad feejignaana. sida warbixintu ay tilmaamayso Israa'iil waxay ka cabsi qabtaa in xiisada hadda jirta ay isu bedesho dagaal cusub taasi oo keentay in ciidamada diyaariyaan baa la yiri qorshayaal degdeg ah oo ku wajahan xaalad kasta oo dagaal. saraakiisha amniga ayaa saadaalinaya haddii dagaalku uu dib u qarxo Iran in ay maalmaha ugu horeeya jawaab ka bixin karayso iyadoo ridaysa baa la yiri 10 gantaal maalin kasta kuwaas oo lagu beegsan doono gudaha dalka Iran. qorshayaasha militariga ee Israa'iil ee dib u bilaabista dagaalka ayaa la soo warinayaa inuu ka mid yahay weerar lagu bartilmaameedsanaya kaabayaasha dhaqaalaha Iran gaar ahaan xarunta tamarta saldhigyada quwadaha dabka iyo waliba xarumo kale oo muhiim ah oo ilaha dhaqaalaha ah
Israa'iil marka waxay doonaysaa in ay curyaamiso dhaqaalaha wadanka Iiraan. warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa in ciidamada cirku ay qorsheynayaan haddii weerarkaasi wada jira loo fuliyo in ay si kaalin fircoon oo togan ay ka qaataan. qubrada amniga waxay ka digayaan bilaabashada colaadda Iiraan iyo Israa'iil inay horseedi karto qalalaase amni iyo dhaqaale oo saameyn ku yeelan kara suuqyada caalamka gaar ahaan dhinaca shidaalka oo hadda dunidu ay ka wajahaysa baa la yiri qatar kale oo ballaaran. isla wararkaasi haddii aan sii eego iyadoo tilaabo military oo la qaado ay aad u muuqan karayso haddana dowladaha ka shaqeynaya xalinta diblomaasiyaddu waxa ay bilaabayaan amaba ay ku guda jiraan ay hadda bilaabeen sidii dowladda Iiraan loogu qanci lahaa tanaasulaad inay miiska soo saarto. war ka soo baxay Pakistan waxa uu tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyo caawa xooggan ay ka socdaan magaalada Tehran ujeedaduna ay tahay colaadda in la soo abiyo. safaaradda Pakistan ee Iiraan ayaa shaacisay in Islamabad iyo Tehran ay yeesheen wada hadallo ku saabsan xoojinta xiriirka dhinacyada u dhaxeeya marka laga yimaado doorka Pakistan ay ku leedahay dhexdhexaadinta nabadda gobolka. warbixintu waxay tilmaantay in kulamadaasi diiradda lagu saaray xiisadda ka taagan bariga dhexe isla markaana loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo looga hortagayo ballaarinta khilaafaadka militariga ee gobolka. dhinaca kale xaaladda amni ee gobolka ayaa sii cakirantay kadib markii militariga Israa'iil uu sheegay in uu dilay in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan ururka xisbiga dagaalo ka dhacay koonfurta Lebanon toddobaadkii la soo dhaafay, taasi oo kordhisay walaaca ku saabsan dagaalka in uu sii ballaaranayo. warar kala duwan oo caawa ka soo baxaya warbaahinta Carabtuna waxa ay muujinayaan dhowr ka mid ah saraakiisha ciidamada nidaamka gacan ku samayska ah in koonfurta Lebanon ay dhibaatooyin ka soo gaareen. sida wargeyska The New York Times uu shaacinayo, Trump waxa ka go'an dagaalka inuu dib ugu laabto haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato oo saadaasha gobolka bariga dhexe aan la aqoon halka ay ku dhamaan karayso. qiyaarta ay nala socota ee gobolka bariga dhexe saadaashiisu waa dagaal cabsi ballaaran ayaa jirta. qubarada warbaahinta ka faalloonaysana waxay tilmaamayaan tan inay dunida saameyn weyn ku yeelan karto. dagaal kasta oo Mareykanka iyo Israa'iil ay dib u galaan waxa uu muujinayaa walaac weyn oo caalamka ku soo fool leh iyo waliba dagaalka in uu ballaarto uu soo gaaro halka baabul mandab ay ka bilaabanayso ilaa laga gaaro badda Khaliijka iyo waliba Persia ee Hormuz. haddii dagaaladun ay ballaartaan waxay saameyn isku mid ah ku yeelan doonaan ganacsiga adduunka, si gaar ah labadan marin ee istiraatiijiga ah ee baabul mandab iyo waliba marinka Hormuz oo iminka qalalaasihiisu uu taagan yahay. qiyaarta ay nala socota ay soo dhawaada wararkaasi si gaar ah ayaan indhaha ugu hayn doonaa inagoo tabinadeena xiga ku eegi doona YouTube-da Barrow Show iyo kana hadda igala socotaan ee Cabdicasiis Barrow. si aad macluumaad iyo warar kala aad u heshaan labada YouTube ku soo biira. haddii dhinaca Facebook aad nagala socotana follow ina soo dhe. waa mahadsantiin.